asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ku soo dhowaada janalka maanta. gabar sawir qaado kooriyaan ah balse haysata dhalashada dalka Maraykanka ayaa bilowday qaadista sawirrada dadka guri la'aanta ay haysato. xilligii ay shaqadaasi ay bilaabaysay waxay baranaysay habka qaadista sawirrada. iyadoo sawirrada ka qaadaysa wadooyinka ayay aqoonsatay mid ka mid ah raggii ay sawirrada ka qaaday. waxaanay ogaatay inuu yahay aabaheed oo sanado badan aysan is arkin. waxaana ugu dambeysay markii waalidiinteeda ay kala tageen gabadha. gabadha waxaa lagu magacaabaa Diana Kim. waxay ahayd 5 sano jir markii waalidiinteeda ay kala tagayeen. waxaana aabaheed uu noqday waxay ugu yeertay maqane. hooyadeed waxa ay gashay waqti adag oo dhanka marka loo eego qaraabada iyo saaxiibadeeda ah. mararka qaarkiina inay joogto jardiinooyinka ama ay waqtiga isaga lumiso gaarigeeda ayaa caadi u ahayd. laakiin Kim oo ah aabaha gabadha dhalay waxa uu eegaya waaye aragnimadiisa inay tahay fursad uu ku dhisi karayo xirfadiisii badbaadada. Diana aabaheed waxa uu lahaa stuudiyo sawirrada lagu qaado, waxaana ay sheegtay in xiisaheeda sawir qaadista uu ka bilowday Kim. waxay bilowday inay sawirrada ka qaado dadka guri la'aanta ay haysato markii kolleejka ay dhiganaysay. mashruuc ahaan waxa ay xitaa ay sii waday sawir qaadisteeda ilaa markii ay noqotay qof khatar ku ah sawir qaadista. mashruuca sawir qaadista wuxuu ahaa mid ku xiran wadnaheeda, malaha sababtoo ah waqtigii adkaa ee carruurnimadeeda iyo xaqiiqada ayaa dareensiiyey inay ku ilowsiin karto nafsadeeda iyo dareenkeedaba. iyadoo sawir ka qaadaysa waddooyinka magaalada waxay garatay mid ka mid a dadkii ay guri la'aanta ay haysatay ee ay sawirka ka qaaday, waxaana ay xaqiiqsatay inuu ahaa aabaheed. waxay isku dayday inay la hadasho isaga, laakiin aad ayuu u qaabdarnaa muuqaal ahaan iyo maskax ahaanba, wuxuuna iska diiday inuu la hadlay gabadha yar ee sawir qaadaha ah. waxay u dhowaatay marar badan iyada oo isku dayaysa inuu mar uun dareenkiisa uu siiyo. kuma aysan guulaysan, xitaa ma uusan soo fiiranin iyada. inkastoo aabaheed uu ka hor yimid inuu aqoonsado gabadhiisa Diana, marnaba kama aysan rajo dhigin oo waxa ay goobta uu ku sugnaa imaanaysa marar badan si ay u aragta aabaheed. waxay isku daydaa mar walba inay la hadasho iyada oo ka rajaynaysa in mar uun uu ka jawaabi doono ayna sawiran doonto isaga oo faraxsan. waxay ku ahayd qalbijab in Diana Kim ay aragtaa aabaheed oo muuqaal faqiirtinimo uu ka muuqdo, islamarkaana aysan wax uun u samayn karaynin. in aabaheed uu soo fiiriyo isha kaamirada ee wax ay ku sawirayso waxay ahayd meesha keliya ee isaga soo dhowaanayeen, waxayna aabaheed weli ay la joogtay niyad ahaan. maalin maalmaha ka mida Diana aabaheed ayaa wadna xanuun uu ku soo booday. isaga oo waddada jooga ayaa mid ka mida dadkii goobta ku sugnaa waxa uu u yeeray gaadiidka ambalaaska. intii isbitaalka uu ku jiray, markii uu ka soo bogsaday xanuunkii wadnaha wuxuu bilaabay inuu ka soo bogsooday xaaladdii dhanka maskaxda ahayd. tani waxay noqon kartaa mid la yaab leh, laakiin wadna xanuunkii wuxuu badbaadiyey noloshiisii. sidoo kale noloshiisii waxaa badbaadiyey ruuxii caawinaadda ambalaaska ahaa ee u yeeray markii xanuunka uu qabtay. helidda ama qaadashada daawada saxda ahayd waxay Kim ay ka dhigtay mid isbeddel weyn uu ku yimaado, waxaana mar walba isbeddelayay xaaladda Kim. isaga iyo gabadhiisa waxaa hadda ay ka shaqeeyaan sidii ay u dhisi lahaayeen xiriirkoodii. maalin kasta inay sameeyaan waxyaabaha caadiga ee waalidkii ilmaha ay sameeyaan oo hore aysan u qaban jirin ayaa caadi u noqotay. in ay wadajir ay gaariga u wada kaxeeyaan ama ay wadajir u aadaan dhanka xeebta magaalada. sheekadan keliya ma ahan mid taabanaysa Diana, waa sheeko qof kastaa taaban karta. waxaan dhammaanteen ugu yaraan aan naqaanaa ruux hoy la'aan ahaa ama hadda aan guri haysan. waxaan rajaynayaa inay tani naga caawin doonto bini'aadanimada iyo inay guri la'aanta aysan ahaanin bulshadeenna, ayuu yidhi Kim. in badan oo aan hadda helay waa in badan oo nafteyda ay heshay. waxaan aad ugu mahadcelinayaa dhadhamintii waqtiga iyo ku adkaysigii isiiyo fursadda aan isku arkayno midba midka kale, ayuu mar kale yidhi Kim. haddii marka ugu horraysa aadan guulaysan, isku day marar badan. taasi waa sax, marnabaha isdhigan. ma beddeli kartid dunida inteeda kale, laakiin isbeddelka nolosha hal ruux ayaa qiimo leh. waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. haddii ay tahay markii kuugu horraysay, fadlan sabskraibda janalka maanta si aad u hesho muuqaalada kale aan halkan ku soo gudbinno. mahadsanidin.